maamulka gobolka Banaadir ayaa hakiyay lacagihii canshuurta ahayd ee ay ka qaadi jireen guryaha ku yaala magaalada Muqdisho. Maxamed Ibrahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa waxaa gabi ahaanba lagu hakiyay lacagihii canshuuraha ee laga qaadi jiray guryaha. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa warbaahinta u akhriyay warqadda ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Bismillahir Rahmanir Rahim. ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir, ku socoto agaasimaha waaxda canshuuraha dowladda hoose Xamar, ku socoto shirkadda Man Agents oo taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka Xamar, taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, agaasimaha guud ee dakhliga kala duwan, agaasimaha guud ee maamulka maaliyadda, xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir. ujeedo joojin canshuuraha guryaha. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharciga lagu dhisay gobolada iyo degmooyinka ee nambarkiisu yahay nambar 6 soo baxay markii taariikhdu ay tahay 12 bisha 1980 markuu arkay sharciga canshuuraha guryaha iyo daaraha gobolka Banaadir ee nambarkiisu yahay 43 soo baxay markii taariikhdu tahay 23 bisha 1977 markuu garwaaqsaday in laga maarmaan ay tahay in la nidaamiyo hanaanka qaadista canshuuraha guryaha iyo daaraha gobolka Banaadir wuxuu soo saaray go'aanada laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24 bisha 10 sanadka 2022 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale wuxuu go'aamiyay in la joojiyo dhammaan qaadista canshuuraha guryaha iyo daaraha gobolka Banaadir ilaa laga gaari doono 31 bisha 12 ee sanadkan 2022 si loo nidaamiyo hanaanka canshuur qaadista gobolka Banaadir. haddaba mas'uuliyiinta sare ku xusan oo ay warqadana sida tooska ugu socoto waxaa la idinka doonayaa in aad fulisaan amarka qoraalkana ku xusan. sidaas daraadeed mas'uuliyiinta ogeysiinta ku leh qoraalkana waxa iyaguna lagu wargelinayaa inay sidaas ula socdaan fulin wacan.